السلام عليكم سودو على صاحبيال lecture kan maanta waxa uu hadlaynaa team lead ninka la oran jiray iyo sheekadiisii xulashada world wide web ama www maanta malaayiin qof ayaa maalin kasta isticmaala internetka si ay u akhriyaan wararka u daawadaan muuqaalada u bartaan aqoonta ama waxyaabooyinka la xiriira cilmi baarista wada xiriiraan laakiin muddo dheer ka hor internetku ma ahayn bogag ama mareegaha website-ka ama naqaano dabayaaqadii sanadkii 1980 saynisyahan computer oo u dhashay Britain oo la dhihi jiray Tim Lee ayaa ka shaqeynaya la yiraahdo CERN waa xarun cilmi baaris weeye cilmi baaryaalka oo inta badan meesha ka shaqeynaya dhibaato ku haysay qaabka ay wadaagi lahaayeen dokumentiyada iyo xogta team wuxuu isweydiiyay baa la yiraahdaa sidee loo sameyn karaa nidaam qof kasta uu si fudud uga heli karo dokumentiyada kombiyuutarka kale ku jira si uu dhibaatadaasi u xalliyo markaa wuxuu sameeyay baa la yiraahdaa fikrad cusub oo isku xiraysa dokumentiyada iyo la adeegsanaya hyperlink ama xiriiriyaasha bogagga wuxuu kaloo sameeyay baa la yiraahdaa 3 farsamo oo ilaa maanta saldhig u ah mareegaha ama website-da internetka wuxuu sameeyay baa la yiraahdaa hypertext markup language ama HTML loo yaqaano qof walba basic maanta in rabo website inuu barto yani in wax ku ogaado muhiim ay tahay waa luqadda lagu dhiso bogagga internetka laba waxa waa HTTP ayaa la yiraahdaa waa hypertext transfer protocol ayaa la yiraahdaa waa habka kombiyuutarka oo wada xiriiraan bogagga internetka ama habka kombiyuutaradu ay wada xiriiraan bogagga internetka mideeda kale waxa la yiraahdaa URL waa uniform resource locator ama waa isha linkiga ciwaanka waa ciwaanka iyadana lagu helo bog kasta oo internetka ku yaalo haddii aad rabo bog internet inaan kuu soo shirgaro waa inaan linkiga soo koobiya aan kuu soo diro waa URL sanadkii 1991 waxaa la furay boggii ugu horeeyay ee world wide web dadku waxay bilaabeen marka inay si sahlan u wadaagaan macluumaad cilmi baaris iyo aqoon waxa marka ugu yaabka badan ayaa ahaa in Tim Lee uusan shati ku xiran farsamadan oo free ka dhigayo wuxuu go'aansaday in world wide web uu noqdo mid qof walba si xor ah u isticmaali karo go'aankaas ayaa marka dardargeliyay la yiraahdo kobaca internetka ee dunida oo dhan maanta marka malaayiin mareegood ama website iyo balaayiin bog oo ku jira world wide web waxaa lagu qabtaa waxbarasho ama waxaa yani soo geliyo yani cilmi badan world wide web waxaa marka ku jira yani xog badan warar badan sheeko badan adiga wixii xog la adduunka oo dhan ayaa loo adeegsanaya hal fikrad marka oo hal u noqota dhibaato ayaa marka bedeli karta dunida oo dhan ninka Tim Lee wuxuu ugu talagalay fikirkiisa in meesha cilmi baaris ka shaqeeyo dadka jooga ay ku wada xiriiraan laakiin maxay faa'iido noqotay dunidii oo dhan marka wadaagista aqoonta waxay dedejisaa marka horumarka tiknoolajiyaduna waxay yani faa'iido badan leedahay markii loo abuuro inay dadka oo dhan ka wada faa'iideystaan hal abuurku marka wuxuu ku bilaabmaa la yiraahdaa fahamka baahida dadka marka dad badan waxay isku khaldaan marka internetka iyo world wide web balse waa laba shay oo kala duwan internetku waa shabakad weyn oo isku xirta kombiyuutaro iyo qalabka adduunka oo dhan world wide web waa ama www waa adeeg ka shaqeeya internetka kaasoo u ogolaanaya inaad booqato bogagga internetka adigoo adeegsanaya marka browserka sida Chrome, Safari iyo Firefox marka internetku waa wadada halka world wide web uu yahay guriyaha iyo goobaha ku hareeraysan wadadaasi intaas ma baahnay marka barato marka tiknoolajiyada ku ekaan kaliya isticmaalkeeda oo kaliya isku day inaad fahanto sida ay u shaqeyso fahamkaasi ayaa noqon kara tallaabada ugu horeysa ee aad ku noqon lahayd hal abuure ama injineerka mustaqbalka aad ayaad mahadsantihiin intaas ayaan kusoo koobaynaa maanta
jirkeena uga hadlaynay www. Asalaamu calaykum.